toddoba maalin kadib boqolaal ka soo baxay salaada jimcaha ayaa soo gaaray goobtii uu ka dhacay qaraxii galaaftay in ka badan 300 oo qof. Sheekh Cabdulxayi oo ah imaamka masjidka Umar bin Khattab ee ku yaala kilomitir 5 ayaa hogaamiyay boqolaalka qof kuwaas oo ku tukaday salaatul janaaza dadkii ku geeriyooday qaraxii Soobe. Imaam Cabdulxayi oo ka hadlay isla goobtii uu ka dhacay qaraxa ee uu ku tujiyay salaatul janaazada ayaa ku baaqay in la samro sidoo kale waxa uu Soomaalida ugu baaqay inay midoobaan. waxaan ugu baaqaynaa Soomaali meel walba ay joogto ayagoo dareenkan aadka iyo shucuurkan u kacsan yaani qadarinaya inay walaaltinimo iyo iscafin iyo nabadgelyo inay isugu imaadaan dhibaatadan si looga tashan lahaa ummadda la isugu keeni lahaa ay walaalo u noqon lahaa in laga wada shaqeeyo dhulku nabad ayuu inagu deeqaa colaad inaguma deeqo nabadaas ayaan ku baaqaynay waana u ducaynaynay shuhadadii iyo dadkii meesha yaani ku shahiiday yaani dhibaatada ay ku gaartay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryaynaa inuu jannatul firdaws u geliyo intii ka soo qayb gashay oo waqtigan kulultimadna ajri iyo xasanaad baan uu ka siiyo eelkii iyo qaraabadii ay ka tageen Ilaahay inuu sabir siiyo oo qalbiga Ilaahay inuu kabana waan ugu ducaynay intaas ayaan isugu imaanay baaqaas ummadda waan u jeedinaa baaq nabadeed ah Ilaahay in loo toobad keeno dambiyada laga baxo isdilka la daayo walaalo la ahaado intaas ayaan dadku u soo jeedinaynaa intii ka soo qayb gashay way mahadsan yihiin aad iyo aad ay u mahadsan yihiin dadka la laayahayna sidaas la mid ayaan ayadana waan isku wada darnay dadka janaazada waxaan u tukanaynay dadkii meesha ku dhintay oo dhan kii lagu tukaday iyo kii aan lagu tukanin kuwa waxa jira googo'ay oo meelba aan lagu sheegin kuwaasna sidaas oo kale waxa kale oo baaqa jira ahkaam la isweydiinayo oo ah dadka aan meel lagu sheegin oo dhimasho iyo nolol mid aan lagu haynin ahkaam ayaa ka dhalanaysa ma dhaxal ayaa imaanaya kuwa reer laha reerkoodii asay ayaa laga rabaa say noqonayaan marka taasna in la isugu baaqo oo raadinta markii yaani intay u baahnayd oo xaqiiqo la raadiyo hadii la waayo in la xukumo inay dhinteen saas daraadeed qof dhintay xukunkii u qaadan lahaa inuu qaato sidaasna waan ugu baaqaynaa dadku waan u sheegnay waan u ducaynaynaa intaas yaani la raadinayay oo isa meeshaan ku maqana waxaan yaani u badan tahay dhanniga ama raajixa uu yahay inay geeriyoodeen marka dadkii ay ka geeriyoodeen marka inay ahkaamta islaamka qof geeriyooday uu mari jiray inay maraan oo yaani asay ninka islaamka ay qaadato haduu maal meel uu ku ogyahay maalkii dhaxal uu galo deymihii lagu lahaa in laga bixiyo yaani in la iska wada qabo cidii aan la haynin oo meel aan lagu ogeyn isaas ay noqotayna deymaha lagu leeyahay intaas inta dad maanta isugu timid iyo warbaahinta aan u marinayno in cidii wax ku leh qof meeshaan lagu sheegay inuu ama soo maray ama saas ay tahay in la iska cafiyo oo deymihii laga cafiyo cidii la garanayo ee deyn lagu leeyahay ama meel wax u qoran yihiin dadka ka agdhow ee walaalaha ama qaraabada ah inay deyntaasi ka bixiyaan maxaa yeelay qofka shahiidka ah dambi oo dhan waa loo dhaafaa wixii aan deynta ka ahayn marka waxaan u rajaynaynaa dadkan inay shuhada ahaayeen maxaa yeelay in la dili doono iyo wax loo dilaayo ayagoo aan ogeyn ayay tani la kulantay marka waa madluumiin waa shuhada marka day tisaas ay yihiin yaani dambigoodii Ilaahay uu dhaafaya deynta ma ogiye marka deyntaasna yaani intii la raadin karo ha laga raadiyo intii la waayana Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa maanta qiyaamaha ka bixinaya maxaa yeelay qofku markuu deynta hore uu qaadanayo yaa nabi wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam qofkii u qaata inuu iska bixiyo Ilaahay baa ka bixinaya qofkii u qaata inuu ka halaagay dadka xoolahoodana Ilaahay baa halaagaya marka niyadsan qofkii ku qaatay oo duruufta ay ku qasabtay oo saan noqday oo aan iska bixin karin ama cid ka bixisay la waayay ama si looga bixiyo la waayna waxaan Ilaahay uga rajaynaynaa Ilaahay inuu ka bixin doono subhanahu wa ta'ala sidoo kale waxa ayana dareenkooda muujiyay qaar ka mid ah boqolaalkii qof ee iyagu salaatul janaazada wadareed ku tukaday dadkii ku geeriyooday qaraxii Soobe. الله وإنا إليه راجعون waxaan ku sugannahay isgooskii oo loo baxshay 14 October ee Soobe waxaan ka soo qayb galnay maanta janaasada dadka walaalaheena meeshan ku shahiiday waxa weeye sheekha iyo kulli jamaacada masaajidka dad meel fog ka yimid kulli waxaan meeshan u nimaadnay inaan u duceeyno dadkii shuhadada ahaa oo meeshan nooga shahiiday oo 3 boqol kor u dhaafay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un baan leenahay mar kale waxaan rajaynaynaa qarax iyo musiibad dambe inay meeshan nooga ekaato ilaahay waxaan leenahay wixii musiiba meeshan noogu ekay maan dadkii meeshan ku geeriyooday dadkii deynta ku lahaa inay iska cafiyaan maadaama ay yihiin dad ayaga macnaha aad u dhibaataysan oo baalkayaan wax aan haysan sidoo kale ummadda muslimiinta dalkii dibad jooga waxaan ka codsanayaa inay caawiyaan dadka muslimiinta halkaas wax ku noqday ay jiraan dad macnaha awalka waraba tabar yaraa ayagoo si tabar yaraa macnaha beesha ku geeriyooday caruurtoodii wax macnaha aysan haysan kaalmo ah shacabka muslimiintana saa uga baaqaya wasalaam shacabka Soomaaliyeed dhammaan waxa uga baaqaya inay yariis iyo weyn duq iyo haween kulli ay ka qayb qaataan musiibadan ku habsatay Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho boqolaalka qof oo u jeedaan waxay ka soo baxeen masaajidka Umar bin Khattab kilomitir 5 oo wax yar u jira meeshii oo ka dhacay musiibadii qaran waxay u yimaadeen dhamaantood in ay ku tukadaan janaaso wadareed intii ku geeriyootay ama ku shahiiday weerarkii aadka
u gelgelay dunida oo dhan iyo weliba shucuubta caalamka Soomaaliya iyo weliba gaar ahaan Soomaalida kuwii la helay raqdooda iyo weliba kuwii aan la helin siday ugu tukan lahaayeen boqolaalkan qof ee ku tukaday salaatul janaasada sidoo kale waxa u duceeyeen dadkii ku geeriyooday qaraxaas waxayse ku soo beegmaysaa xilli maalmihii la soo dhaafay dalka oo dhan ay ka socotay baroordiiq maxamed kaafi goobjoog